بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحمد جامع علي waxaan halkan baaq uga dirayaa maamul goboleedka Puntland madaxweynaha dadani shalay beelweynta laalkase ee degan magaalada Gaalkacyo xaafada Garsoor waxa lagu xasuuqay maamulka Puntland waxaana lagu sheegay inay yihiin al-shabaab qabiil ayaa waxa lagu xasuuqay hubkii dawlad maamul goboleedka ayaa qabiil lagu xasuuqay oo loogu xoog sheegtay taas oo loogu sheegay inay yihiin al-shabaab loogu soo gabaday caruurahoodii iyo maatadoodii iyo odayaashoodii lagu xasuuqay maanta tiyo kaleeto waxaana lagu sheegay inay yihiin beelweynta laalkase cabtooy halkaas oo lagu xasuuqay maatadoodii caruurtoodii iyo hantidoodii guryahoodii la dudubay xaafada Garsoor ulka la dhigay wayna soo gaartay midaas mid loo maamulka Puntland waxaa wada dhistay qabiilo isku tagay oo Soomaaliyeed anaga waxaan nahay one of those qabiils waxaan jecelnahay nabadda waxaan nahay dad xalaal quudate ah waxaan nahay dad ka shaqeeyo horumarkooda iyo caruurahooda say u korsan lahaayeen horumar u gaarsiin lahaayeen xaaraan ma cuno marka maalin kasta anaga in loogu soo gabado waxna loogu soo gabado oo caruuraheena lagu xasuuqo waxa loo suubinayo waan ognahay horumarka beelweyntaanayto ilaahay taqaana ayaa laga xun yahay laakiin ilaahay baan idinkaga dacwoonaynaa Soomaalina waa idinkaga dacwoonaynaa Soomaaliyay maamul goboleedka la sheegayo ma qabiil inuu qabiilka awood bataa ma qabiil inuu qabiil hubkii dawladda uu qabiil uu ku garaacamaya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxaan ku sheegayaa maanta xasuuqii ka dhacay Garsoor iyo maalkii iyo caruurihii iyo odayaashii iyo wiilashii dhalinyarada ahaa oo la xasuuqay adaa ka mas'uul ah aqri aduna adaa lagu heystaa waa inaad ka soo jawaabtaa oo ciidamada aad ka soo diraysid Garoowe aad u soo diraysid Garsoor oo magaca dawladeed sheeganayo oo qabiilka lagu xasuuqayo waa inaad joojisaa taasay tumalagaaga dabaharaayo adduunkana waa lagu dacweynayaa ilaahayna waa lagu dacweynayaa anaga dagaal ma rabno dad masaakiinina qabiilku lama dagaalayno Soomaali nabadeedan ka talinaa anaga qarannimaan jecelnaa anaga xoogeenaan shaqaysanaa xaaraan ma cuno xaaraana kuma noolin baqa adu kugu socdaa jooji xasuuqa aad ka wadid Garsoor waxaana lagu xasuuqay waxay tahay maxaa dariskiina ula heshiinaysiin maxaa dariskiina ula shiraysiin maxaa nabadda uga shaqaynaysiin anaga nabadda waa ka shaqaynaynaa oo Gaalkacyo waa la wada degan yahay Garsoor waxay u dhaxaysaa xaafado dadka dariska nala ah daris wanaag inaan kula noolaano anaga waajibna saaran waay caruurteena iyo dumarkeena iyo maatadeena inay nabad galaan waa muhiim ay noo tahay anaga dadka dariskeena inaan nabad gelino muhiim ay noo tahay haddaad daniyow intaas aad ku xasuuqday maanta tanade oo cabtooy aad ku tiri de ilaaha ka jaasaynaya taasna jawaabteeda waa laga rabaa anaga qurba joog haddaan nahay kulligee baaqaas adaan ku soo diraynaa sababta dadkii xasuuqay dadkii maanta la xasuuqay dadkii xasuuqay waa inaad maxkamad hor keentaa dawladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed maamul goboleedku ummadda Soomaaliyeed waxaan idin weydiinayaa maamul goboleed macnihiisu ma waxay tahay inuu qabiil adoonsado inuu qabiil hubkii dawladda iyo hubkii dadka maamulkaas wada samaystay in lagu difaaci lahaa oo nabadooda lagu sugi lahaa in qabiil loogu awood sheegto maamul goboleedka la sheegayo ma taasaa Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ma taasaa anaga maamul goboleedka Puntland ayaan ka tirsanahay hubkii dawlad goboleedka in anagana lagu xasuuqa maalin kasta maamul goboleedka makaasaa Soomaaliyeed weligiin yusri ma gaaraysiin weligiina nabad ma helaysiin inta qabiil uu ku xasuuqayo awoodda dawladda waxaan tacsi u dirayaa dhammaan beelweynta tanade laalkase maanta xasuuq lagu geystay magaalada Gaalkacyo xaafada Garsoor
oo u geystay maamul goboleedka Puntland waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u boogdayo waalidiintooda iyo ehelkooda iyo qaraabadoodana intii dhimatay samir iyo iimaan Allah ka siiyo maanta inta Soomaali ayaan uga dacwoonaynaa dadkan ilaahay baan uga dacwoonaynaa shalay 2011 xasuuq xunaana loo geystay maanta xasuuq xunaana loo geystay maamul magaciisa nalagu xasuuqay aan anaga aan ka midnahay ya maadaama oo hubki ugu jira gacanta qabiil ya anagana dad xalaal qoodate oo masaakiin oo ilaahay yaqaana aan nahay waxana lagu haysto waxay tahay war maxaa dariskiina ula heshiinaysiin waxana lagu haysto waa dariskiina maxaa ula heshiinaysiin